guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada Somaliland ayaa hotel Mansour magaalada Hargeysa ku soo bandhigay warbixin iyo xog ururin dheer oo ay ka soo sameeyeen guud ahaan gobolada Somaliland iyo qaar ka mid ah degmooyinka dalka inta badan waxay la soo kulmeen barasaabada goboladaasi iyo ku dhawaad 250 isuduwe oo halkaas ugu soo bandhigay xogta shaqo qalab iyo baahiyaha ku gadaaman munaasabadaasi waxa ka soo qayb galay shirkidoonka golaha wakiilada Somaliland wasiiro iyo mas'uuliyiinta xisbiyada qaranka Somaliland xubno ka socda ururada dawliga ahayn iyo xubno kale oo tiro badan munaasabadaasi ugu horeyntii waxa halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada Somaliland Baashe Maxamed Faarax gudoomiyaha guddiga dabagalka hantida qaranka Maxamed Cali Xirsi Obama iyo xildhibaano oo ka warbixiyay ujeedada warbixintan ay soo bandhigayaan guddida aad iyo aad bay fasaxoodii oo dhan may nasan way shaqeeyeen inay soo bandhigaan tusaaleedina la aragtaan oo la isla eego oo wixii khaldan la saxo oo baa ujeedadu tahay maaha in la isdaliilo waxa weeye xukuumaddu waa inay isla wada shaqeysaa waa inay istoosisaa waa inay wax isu sheegtaa waxay la noqotay inaan xogtaan soo ururinay aan ugu soo bandhigno madaxda qaranka iyadoo dadka keliya makalan ay tahay sidii wadajir looga qaban lahaa intaa kadib waxaa halkaasi lagu soo bandhigay film documentary oo ka sheekeynaya xaaladaha dhabta ee ku gadaaman deegaanadaasi ay tegeen oo ka sheekeynaya xaaladihii iyo xubnihii kala duwanaa ee la soo kulmeen isagoo Maxamed Cali Xirsi Obama uu sharaxay heerka dhaqaale ee wasaaradaha iyo inta gobolada gaadha iyo wasaaradaha ugu hooseeya waxaanu yidhi waxaa gobolka Hargeysa ka gaaray boqolkiiba 2015 waa qarashaad ka gaaray وهوكيبا 89%. قبل لي وقت 0.95. That means running cost مالها station مالها لين مالها بيا مالها حفيز الكريستان ويا مالها وسهل ويد مالها يروي ويوقفنا على كشاف وأقول مثال له الصور وأقولي why أي running cost حفيز السنولة وسهل هو سيقول لك وسيري يوسف وغيره معك وسهل هو فاقته waxaan shaqaynaa wasaaradda wafaafinta miisaaniyadda qoysoon 0.98 payment marka ay ka helaan 0.98 waxa ay ka gaaraan hada wasaaraddaas wasaaradda boosta ay gaarsiinta ugu dambeyntiina wasiirka wasaaradda maaliyadda Somaliland Samsam Cabdi Aadan ayaa ka hadashay warbixintan la soo bandhigay idaacadda lafteeda wasaaradda wafaafinta maraan madaxweynaha raacay intuu mareeyay aad bay u wanaagsanay aan taqriiban isku lahayn waxa yiraahdeen idaacadda baan dhageysanaa marka dadku idaacad fiiriyana way helaan warbixintan ayaa inta badan taabanaysay wasaaradaha iyo siday gobolada uga shaqeeyaan iyadoo jiraan wasaarado badan oo aad ugu hooseeyay Ismaan Axmed Ismaan telefishinka caalamiga Star magaalada Hargeysa.